السلام عليكم. أريو حقاق والالكي فاروي وفي عنتا علي سوي هي عرفون ميادي ها ninkaana ninka uu markaas aan wada soconay ayaa nin uu yimid wuxuu yiri ninkii hoos buu ku dhistay xamar waan aamini waayay markaan ayaan aamusnaa oo warkii la aamusnaa ninkii nin saaxiibkiisa la ahaa oo ninkaan ariyo saaxiibkiis ah uu ninkii ii soo adeegsaday uu yiri u sheeg carfoon ninkii inuu naa guursaday xamarna degay reerkiisuna cishteen intaas ha ogaato haddana ninkay sugaysay naag buu guursada la yiri wixii qaban lahaa ayaa i qabtay intii la socotay qisada jacayl ee maxamed nuur aadan oo ku magac dheer adeera oo TV-ga Universal la wadaaga 4 bil ka hor hadda waxa helnay natiijada sheekadaasi waxaana markii ugu horeysay in la soo xiriirtay carfoontii oo adeera jacaylkeeda u waalnaa wax ka badan 30 sano hadda waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho caasimadda dalka aniga adeerana waxa ku sugannahay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose masaafahan labada magaalo ayaa isku jira 500 oo kiiloomitir balse socdaalka dhinaca hawada ee diyaaradda ayaa saaki inoo sahlaya in ani adeera aan ku tagno muddo hal saac rajadii adeera ee carfoon ahayd hadda waa marwo 4 guur oo ay soo martay aan wali wax u badaha dhalin waxayna inay cafis weydiisato uga timid mid kamid ah magaalooyinka aan ku jirin gacanta dawladda si aysan ula kulmin qatar amni iyo xuquuq bulsho ayay cusutay inaan u qarino xogteeda oo uu wajiga kamid yahay dareen ahaan is aragoodii maalinkii koowaad iyo labaad ayay inoo suuro gelin inaan helno dareen xakamaysan oo ay nagula hadlaan balse saako oo is aragoodii saddexaad ayay labadooduba inoo qisa warrami doonaan السلام عليكم. أريو حقاق والالكي فاروي وفي عنتا علي سوي هي عرفون ميادي ها waa maalin kale oo wadata dareenkeeda waxaana dib u kulmaya dad isjeclaa 30 sano ka hor kuwaas oo calafka iyo waqtiga kala fogeeyay balse midkood uu ilaalinta axdiga jacayl ka maray dhib jacayl oo aad u badan kaasoo noloshiisa geliyay saacado maalmo iyo sanado mugdi ah carfoon oo ahayd jacaylkiisii ugu horeeyay ee adeer oo calfan waayay ayaa maanta inooga sheekaynayso sida uu ku burburay axdigii guur ee ka dhaxeeyay labadooda foon baa la yiraahdaa jab yar oo ninkan ii yaqaanay naanistiisa ariyo ayaa la dhihi jiray ariga tuuladuna raaci jiray marka ninkan anigu sidaad wax u fahanteen ama bulshadu ay u maqashay waxba uma jiraan ninkan walaalkay ahaa waa isjeclayn waan rabnay inaan arrinteena dhamaysano hase ahaatee waxaan calaf ahayn lama cuno waxaan wadahayna looma dhinto ninkan asagoo arila ah oo ariga ka raaca tuulada qowsaarka ah buu yiri waa ku rabaa waa wada hadalnay anigu rajiyagoona waa ahaa ayay ay korsatay ayadiina way dhimatay nin ari raac ima kaafiyo bal waxaan nolol ka bedelan samee beeru tabcaday beeraleeyo noqday tacaba u go'ay tacabkii buu safarsaday oo safar la aado buu soo raagay muddo buu maqnaa ilaa adigu dhowr bilood buu maqnaa hadda naagna waxaa la kasnaageed waa kadroobka kaaga dambeeyay anigoo labaynayo le ninkii maxaa ku dhacay maxaa helay leh ninkaana ninka uu markaas aan wada soconay ayaa nin uu yimid wuxuu yiri ninkii hoos buu ku dhistay xamar waan aamini waayay markaan ayaan aamusnaa oo warkii la aamusnaa ninkii nin saaxiibkiisa la ahaa oo ninkaan ariyo saaxiibkiis ah uu ninkii ii soo adeegsaday uu yiri u sheeg carfoon ninkii inuu naa guursaday xamarna degay reerkiisuna cishteen intaas ha ogaato haddana ninkay sugaysay naag buu guursada la yiri wixii qaban lahaa ayaa i qabtay waa iska xanaaqo ninkan awalba ninkan aan kaga kalsoonaa ayaan haddana ku noqday ninkii baa iska guursaday ilaahay waxna ma kala siin waa kala harnay nin kalaan guursaday alxamdulillaah inkastoo iga dhintay qaxooti baan galay midkii ugu dambeeyay hadda waan wada joognaa oo afraad waxna ma aanan dhalin marka walaalkay waxaan bulshada meelaha ka maqlay oo meelaha la iga soo tabiyay in uu xanuunsaday xanuunkiisii anigu waa la xanuunsaday aad baan ula kurbooday saas la awligeed ayaan maanta xiriir iyo wax u sameeyay walaalkay waxaan ka rabaa oon ka codsanayaa oon kaga baryayaa iyo macal bulshada Soomaaliyeedba inuu walaalkay iska cafiyo oo cafis ii fidiyo mahad cabdi shaqlan oo ah shakhsi wax badan ka og axdigii guur ee burburay ee ka dhaxeeya carfoon iyo adeera ayaa sheegay inaysan filaynin aragtideeda carfoon
balse waxa uu sheegay in dhibka loo mara carfoon uusan u qalmin qiilka ay maanta la timid. lambarkayga anoo mahad cabdishaqlana ila soo xiriirtay ninkana iliyo waa la yiraahdaa adeer Kismaayo oo u baxday gabadhan carfoon waaye anaga maanta waxaan ku faraxsanahay alxamdulillah rabbil caalamiin ina iliyo iyo carfoon ay is arkaano carfoon waxay marsiya ka dhiganaysaa aniga nin baa ii imaaday iliyo wuxuu ku guurtay Muqdisho yiraahday waxaasna ma jirin iliyo Muqdisho kuma guursan iyada aawadeedu u baxay hantidiisu la imaaday ballanka baha iyada keentay laakiin nin walba waxaan aan kala dadaarma ama nin ha aado ama gabar ha aado ama wiil ha aado waa inuu ballanta iyo ahdiga waa inuu ilaaliyaa. adeera oo duco iyo daweyn dhanka dhimirka oo uu ka helay Dr. Xabeeb uu alla ku caafiyay ayaa isaga oo qiiraysan si kooban uga hadlay la kulanka gabadhii uu darteeda dhibka badan u maray. carfoon jab yaray in is aragna waa ku faraxsan أنا درتا دبنا صومرة هذا نوافي أنا هذا الحمد لله هرينا نوالجو عفية هذا نوالجو عفية إلهي ما هكوسيو أنا أفيس لقتله bilowga sanadka cusub ee 2023 ayuu qorshuhu yahay inuu adeera la midooba gabar ay xigtay yihiin taasi oo aqbashay guurkiisa ballan qaadayna in ay xanaaneyn doonto inta ka dhiman nolosheeda waxaana hadda socdo dhismaha guri loo dhisay adeera iyadoo garab laga helaya shacabka Soomaaliyeed.